fiican uga hadashay manhajka saxda ama ugu haboon ee uu ardayga dalab cilmiga ama ardayga shariicada islaamka baranaya uu u baahan yahay inuu ka bilaabo bal adigu aragnimadaada iyo aqoontaada iyo muddada ku soo dhex jirtay barashada shariicada islaamka iyo baridda shariicada islaamka manhajka isleedahay ugu fududiyay waa inuu ugu saxsan yahay ee uu qof bilow ah uu ka bilaabi karo bal noo qodobe. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وحين أغنهي وحكستي الله برانيا وحو أباهيهي هرت اللقد وكقرنيهي إن لبرته شريعة إسلامكو وحا أصل أما قندق أو قرآن كريم يسنها الرسول عليه الصلاة والسلام لبضوا وحي كقرنيهي اللغة العربية أرضي قدون يينو شريعة برته waxaa marka hore saaran inuu luqada carabiga aqoon u yeesho luqada carabiga meelaha ugu horeeya ee laga bilaabi kara waa naxwaha inuu naxwaha garanayo toddoba kitaab haduu ardaygu naxwaha ka qaato toddobada kitaab way ku filan yihiin walibana heer buu ka gaari karaa oo intuu doono iyo sidoo doono u daliishan karo ulogana soo bixi karo masaa'ilka iyo ahkaamta looga baahan yahay aayaadka iyo ahadiista marka koobaad ajruumiga kitaabka yare leeyahay ayuu ka bilaabaya haddana nadmigiisa camriidiga ayuu ku xujisiinayaa haddana mulxaha kitaabka la yiraahdo saddexda ayuu ku xujisiinayaa kitaabka afraadi kanu noqonaya waaban haynaa waa kawaakibka ayuu ku xujisiinayaa kitaabka ayuu ku xujisiinayaa waa kitaabka afraad kitaabka shanaad waa kanoo kale ayuu ku xujisiinayaa ruuxul i'raabka ayuu ku xujisiinayaa waa kitaabka shanaad kitaabka lixaad wuxuu ku xujisiinayaa kitaabkan xaashiyatu sajaaci waa qadru nada kitaabkii la oran jiray kaasuu ku xujisiinayaa kitaabka ugu dambeeya ee toddobaad een oran karnaa waa kitaabkan waa alfiyatu ibn maaliga waa khulaasadii fanniga waa kitaab kumbeyd ah hadduu toddobada kitaab naxwaha ka qaato waxaan kula talin lahaa sarfigana uu intaa in la ka qaato tusaale ahaan wuxuu qaadanayaa laamiyaha oo kale wuxuu qaadanayaa xadiiqada oo kale wuxuu qaadanayaa ciziyiga oo kale wuxuu qaadanayaa kitaabka 500 ee bayd ee la yiraahdo tasriifka oo kale wuxuu qaadanayaa sida kashful asraarka oo kale hadduu uu naxwahana sarfigana intaa ka qaato balaaqadana 4 kitaab 5 kitaab uu ka qaato sida kitaabka yare ee samarqandiyada la yiraahdo tuhfatul ikhwaanka oo kale jawharul maknuunka oo kale iyo kitaabka talkhiiska iyo balaaqatul waadiha shanta uu balaaqadana ka qaato luqada si guud ardaydu way ugu kala baxayaan oo ardaygu hadii uu ahaa arday madaariska ku soo dhex jiri jiray ama masaajida ku soo xidhnaa toos buu u bilaabayaa naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada manhajka aan sheegay saddexda maado ayuu marka hore bilaabayaa ayuu horeysiinaya naxwaha toddobada kitaab uu ka qaadani sarfigana lixda kitaab uu ka qaadani balaaqadana shanta kitaab uu ka qaadani waxa inta uga dambeeya waa shariicadii xadiiskii iyo tafsiirkii iyo maxaan ku iraahdaa fiqhigii iyo mid kasta wixii kabayay oo xadiis markaad bilaabayso mustalaxiisa la raaciya fiqhi markaad bilaabaysana usul fiqhiga la raaciya markaad tafsiirka bilaabaysana ulumul qur'aan ayaa la raaciya inta ayaa muhiim ah inuu qofku qaato funuunta hadaynu isku soo ururino saddex qaybood waa ulumul arabiyya inuu ka soo qaadanay naxwaha iyo sarfiga iyo balaaqada saddexda ulumul arabiyya inuu ka soo qaadanay lixna waxaynu ka soo qaadanay shariicada fiqhiga oo lamaan waa fiqhiga iyo usulul fiqhiga qawaacid al fiqhiyuna way iska raacayaan xadiiska oo lamaan waa xadiiska iyo mustalaxiisa iyo tafsiirka oo lamaan waa tafsiirka quraanka kariimka ah iyo maxaan ku iraahdaa ulumul quraanka lixdaasna xagga shariicada ayuu ka qaadanaya saddexdaana xagga wuxuu ka qaadanayaa aalada iyo luqada carabiga oo lixdaas aan la fahmi kareynin hadii qofku una luqadii garanayn ilaa af Soomaali kuma qorno af kalena kuma qorno af Carabi bay ku qoran yihiin hadii ardaygu uu yahay arday aan masaajida ku soo jirin horay madaaris luqada carabiga ku baxana soo dhiganayay una ahayn thaqaafadiisa iyo carabiguna ay iska kooban tahay waxaan kula talin lahaa xataa naxwaha iyo sarfiga hortood inuu qofku qaato kitaabka la yiraahdo al-arabiyya bayna yadayka kitaabka la yiraahdo al-arabiyya bayna yadayka ama al-arabiyya lin-naashi'in waa silsilad mutakaamila midna waa saddex kitaab oo waaweyn waxa loogu talagalay muddo sanad ah ardayga iska mashquulkii inuu ku dhigto ardayga aan mashquulka ahaynina 3 bilood buu ku dhiganaya ee isaga u tafaruqay 3 bilood buu ku dhiganaya waana af carabigii oo macal takallumkii macal laylisyadii oo nolosha qaybaheegii kala dudunaayo dhan ah mar sariimada ayaad ka helaysaa wixii qofka sariime tagaya uu isticmaali lahaa marna bacadlaha qofkii tagayay wuxuu isticmaali lahaa marna hudheelada qofkii tagayay wuxuu isticmaali lahaa marna waxyaabihii daily use la oran jiray si joogto ah loo isticmaali jiray ayuu ka helaya sidoo kale al-arabiyyatu lin-naashi'in
isna waa silsilad muhiima oo 6 kitaab ka kooban ardaygu hadduu carabigiisu hooseeyo kuwa inuu soo qaato marka hore ayaan kolley kula talin lahayn naxwahana inuu ka horreysiiyo kuwan naxwahan yaree naxwul waadixa la yidhaah ee 6 juz ah kuwa ayuu ka horreysiini intaa markuu soo liqo ayuu kuwan u soo gudbayaa markaasuu vocabulary badan iyo ereyo fara badan oo luqa carabiya ah ayuu helayaa wallahu subhanahu ta'ala ala wa ala jazakallah